gudoomiyaha degmada Lixilaatka June xusbi xaakimka talada haya kulmiye mudane Axmed Gobonimo ayaa maanta shirkiisan jiray ku cilaamiyay in maalinta Isniinta ay iskugu soo baxdo degmada Lixilaatka June haween waxgarad iyo cuqaal iyo waayeelba inay maalinta Isniinta ee bishan barakeysan ee Ramadaan aynu ku jirno laga gori doono degmada Lixilaatka June waxa teelsan qashin waxaana uu ku sababeeyay gudoomiyaha degmada Lixilaatka June in caafimaadka degmada laga wada shaqeeyo xusbi xaakimka talada ayaa iyo mucaarad iyo bulshada ku dhaqan degmada Lixilaatka June oo sidoo kale waxa gudoomiyaha degmada Lixilaatka June ee xusbi xaakimka talada haya kulmiye mudane Axmed Gobonimo uu baaq u diray shirkadda qashinka ka qaada degmada Lixilaatka June inay maalintaasi Isniinta hadduu alla qadaro ay u diyaar garowdo qashin ururinta degmadaasi sidoo kalena waxa uu baaq u diray maayirka caasimadda Somaliland maayir soo kagana codsaday in degmada Lixilaatka June maalintaasi Isniinta hadduu alla yiraahdo lagaga nadiifin doono qashinka isla markaana ay ka qaado dawladda hoose sidoo kale waxa gudoomiyaha degmada Lixilaatka June uu taasi tiiraanyada u diray eelkii qaraabadii iyo asxaabtii ay kaga waxeen bulshadii jubanbiyoodka ku geeriyootay ee gobolka Togdheer ee magaalada madaxdiisa Burco ilaahay waxa ka barinaa amaasha iyo camaladaynu inoo fududeeyo khayrkeeda nasiyo runtii shirka jiray waxaan u qabanay xaaladda Burco ka soo cusboonaatay ee jubanbiyoodka runtii oo nadaafadda weyn ay ka muuqato caasimadda Hargeysa inaan ololaheeda ka galo degmaha annaga iyo dhalinyaradii garabada haweenka iyo guud ahaanba xafiiskaygii Lixilaatka June xusbiga kulmiye annagoo u ballanay maalinta Isniinta inaan ololo ballaaran oo dhar iyo gaba qaadno oon ku xaari doono idaacadda deegaankeeda iyo meelo badan oo suuqyada sida Gobonimo iyo suuqyada Lixilaatka June oo simato dhan xaafadda Lixilaatka June waa xaafad ballaaran runtii suuqyada magaalada waaweyn ku yaalaan runtii waxaan dawladda hoosena aad ugu codsanay inay naga caawiyaan qaaditaanka xashiishka annaguna waxaan ka shaqayn doonaa inaan ururino barna gubno maalinta Isniinta hadduu alla yiraahdo sidaa daraadeed baan shirka jiray u qabanay runtii xaaladda Burco ka soo cusboonaatayna aad iyo aad baan uga naxsanahay waa arrin aad u adag oon aad uga damqanay in shacbiga intaa leh maalin kasta ku dhintaan jubanbiyoodka arrintaa xukuumaddu si wanaagsan bay uga gashay habase ahaatee waa hawl aad uga sii weyn xukuumadda oo ka awood sarreysa runtii waxaan leeyahay ilaahay arrinkaa naga soo qabuujiyo ummadda dhimanaysa maalintiiba intaasoo qof dhimanayaan runtii xaalad guud weeyaan oo ina saamaysay waxaa kaloo xaggan fariin uga dirayaa wakaaladda biyaha oon leeyahay kaloorintii lagu soo daro biyaha ceerasha sidii berigii hore kaloorintii loogu dari jiray xaafad kasta oo caasimadda ka tirsan degmada Lixilaatka June waxaa faraya in caafimaadka laga taxadiro oo qolo kasta ahaantii biyaha ku shubanayaan ay kaloorin ku daraan oo biyaha carruurta laga karkariyo arrintaasi taxadirkeeda ayay mudan tahay waayo waxaan ku noolay caasimad dad badan ku nool yihiin runtii waad arkaysaa roobo weyn xiriir bay maalmahanba inoogu daayeen xaaladdeena caafimaad aad loo soo foolxuntay markaad aragta bacaha iyo caadilaha bannaanka daadsan waad naxaysaa marka arrintaasaan shirka jiray u qabanay inaan baaq ka soo saarno annagu maalinta Isniinta ayaanu iclaaminay inaanu isugu soo baxno degmada dhalinyaro haween waayeel iyo guud ahaanba Lixilaatka June inaanu gacan marino xaafadda Lixilaatka June intii awoodeeda dhammaantiina waa salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.